intii ku hadhayna imikay tagaysaa waayo sababta madaxweynuhu waa kii lahaa dalkiina aamina carradiina aamina taasaa idinku filan waa nimco ilaahay nimcadiina wataade saa u baaday cidda biisayna waa ajaanib kii muwaadinka ee waddanka u dhashay ee ama ka soo dagaalamay ee ama waxaan lagu soo xoreeyey adeer de maanta waa kaa ka qatan wax soo saarka iyagii horta waa kaasoo tamaandhadaasi maanta waxaan u gurray oo macnaha aanu ku qaadayno in geedka un laga soo gooyo geedka harkaa un lasa mooyaane wax maanta haddii alla ka dhiga suuqa oo nuu haynaayo ma jirto ta sababtayna waxa weeye wasiirka beeraha iyo ka ganacsiga labaduba horta iyo macal maaliyad dhammaantood isu wadageeyo wax dawliyahoo macnaha maanta bulshadii ka warhayaay ma jirto madaxweynaha sharaf dalana waxaan leeyahay salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa dhammaantood meel kastoo ay joogaan ummadda reer somalilan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laakiintiis waxaan leeyahay dawladdu waa inay waxa bulshadooda hoos u eegaan wadaninimada hoos u eegaan khudaarta soo go'day ee macnaha khudaarta Itoobiya ka timaaday ay dhulka la dhacday ee maanta aanan suuq u haynin niyad jabka nagu dhacay awgeed waxa weeye in aanu ka guuro iyo inaad jawaab dhaqsaan nooga keentaan oo aan wixii maanta taageedka taala meel lagu soo guurto ma jirto tii saaka la raray hargeysa dhex taala gobonimo tii shalay tole waa la soo celiyay muuqaalkeega waa arki doontaan insha Allah bismillaahi kariim waa taa wada muuqata tan maanta aanu gurray waxa soo celiyay gaarigii la saaray baa lagu yiri lagama tajinayo tamaandhada Itoobiya meesha walba taale iskala noqo cidda ku tirina waxa weeye ciddii dumarkii noo iibinayay ee meesha dilaalatada noo aha in anagu wax u soo dirin kadib markaa maxaa yaala waxaan leeyahay wasiirka beeraha wixii aad nalahayd ee aanu idaacadaha ka dhageysanay eed ku heesayseen ma been buuha meedaan rumaynin hantidayadii ayaa gashay xoogayagii baa galay waxa ka casi waxa weeyaan dhiig rag dee kol laygu soo celiyba beerkaba oo ka isku eeg dee ka warayo waxa saay galayna waxa weeyaan hantidii macnaha aan ku dhinaaloonayay ee aan macnaha waxaan u beertay dee Itoobiya qaadatay oo shacbigii Itoobiya dee macnaha ku arad baxday dee aniguna waan ka aradanahay markaa anigu muwaadinba meeyada qaranka waan iskaga guri waayo sababta dawladdu maalinta ay doorasho jirtay ee bacadka la istaagayna way noo yimaadaan xitaa heer deegaan la dhaho maxaad joogtaan ninayga maanan arag xabad beena saliima looma keenaan bam beeraha lagu buufiyo looma keenaan oo kama aragno qodaal hadday tahay iyada hadalkeed bad waxba yimid noqodi wax barasho hadday tahay waxa weeye nin waliba ilmihiisii dee meeluu la tegay intii ku hadhayna imikay tagaysaa waayo sababta madaxweynuhu waa kii lahaa dalkiina aamina carradiina aamina taasaa idinku filan waa nimco ilaahay nimcadiina wataade saa u baaday cidda biisayna waa ajaanib kii muwaadinka ee waddanka u dhashay ee ama ka soo dagaalamay ee ama waxaan lagu soo xoreeyey adeer de maanta waa kaa ka qatan